warsan iyo weersan isoo wacee warsan iyo weersan isoo wacee usoo wacee warsan iyo weersan usoo wacee waxaan codsanaynaa inaan hello وليس wax naga saara oo aan helno dad kabinetki safaarada ka shaqeyn lahaa in loo magacaabo ama community-ga laga dhex magacaabo ama dawladdu ha soo magacaabo dadka dad u shaqeeya in la helo oo dhibaatada haysata maalin walba dad baa ka imaanaya Norway oo kale oo fog halkan ay imaanayaan warqad bay ka soo doonanayaan Norway lagu soo cusboonayay safaaradiina warqadka kale la leeyahay warqadda markay soo doonaan halka ay imaadaan waxay ku qaadataa 15 cisho ama ka badan in qofkii warqadaas hotel deganaado soo qarash iska bixin kareen ama dad kale marti ku ahaa marka arrinka isaga ah waxaan dawladda ku codsanaynaa si degdeg ah in wax looga qabto dhibaatada dadka haysata marka hadba waxaa jira community badan ka jira Belgium waxay soo gudbinayaan taageero aad u xoog badan ay dawladda u qabaan iyo kalgacayl iyo kalsooni dawladana u qabaan dawladana ay uga duwan tahay dawladihii soo maray dalka 20 sano soo maray marka way u haweeyeen dawladda inay qaban doonto wax weyn oo hadii Ilaahay yiraahdo ka bedeli doona wixii dhibaatada soo maray naga bedeli doona marka madaxweynaha iyo kabinetka la socdo waxaan ka rajaynaynaa oo aan ugu hambalyeynaa in Ilaahay ka la garab galo dhibaatada ay ku dhex jiraan ee ah burburka Soomaaliya oo aan wali dhamaan oo ilaa shalay ilaa xaalad dhagaha ku soo dhacaysa xaalad mid ka dhacaysa inay mid wanaagsan ay noqdaan marka waan ducaynaynaa waxaan ku ducaynaynaa Ilaahay la garab galo dhibaatada iyo horta Allah waxaan idin soo gudbinaynaa oo ku hadlaya magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee Belgium ku nool kalsooni weyn ay qabaan oo dawladda ay u hambalyeynayaan oo taageersiin oo garab taageerayaan inta markaan uga baxo waxaan si wanaaga waqti caawa kula wanaagsan isugu nimid oo dad badan oo isheli karin caawa isheleen oo meesha isku arkeen waxaan idinku codsanayaa walaalahayda dhibaato badan baa soo marnay anigu ma da'ayay waxaan garanayaa Soomaali isjecel ayaa ku soo garaacsaday oo ku soo weynaada nin saltanadoon ka ah dawladda oo magac raadinaya oo hadda meesha u taagay inuu magac helo ma yihi waxaan doonayaa oo kaliya inaan Soomaali helo oo nabadgelyo helo oo aan dalkayga nin wal oo walaalkeena waxaan ka rajaynayaa sidaas aan dareemay inuu ila dareemo midka aan ka codsanayna waxa weeyaan inteeda odayaasha ah ee Belgium ku nool ee u wada weyn dadka meesha ku nool aan tuusino inta naga yareeyo oo aan badbaadino ubadka Belgium ku nool haddaan la gaari karin meesha ubad fara badan oo dhulka la keenay ama ku dhashay waa ku day waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha jaaliyadda Holland Sheekh Cumar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وكهنا يا مجمع جالية هولند وعن سلام خاصة أسر جديدة يا وعاوة نصيب يا لنا لكم اليوم مدحوينها ومرضى الصوماليات مدنا حسن الشيخ محمود. وعكوا أيضا السلام خاص أسر جديدة يا وفدية كارك الصراع والله صعدا وكمية هاي أباشطور نور عبد أصير نصيب دنيا إن شاء الله. أنت كذب وأنت عاو فرصة بالغالية إنه مدحوني بلوك الموسف عن فرصة غالية وهلنا وأنت ونصيب عن يلاني جودهان تنجالية الجود يوروب سنة اللي قلنا لها وحن كلامي هاي وعن إن بدن عن المعلمين بدوبيها الجالية الجود البلجيوم وحن نعطيك ظروفها وحيابها وكهل ومرت وحيابه لفتي هذا يورا وأنا كهل تاي runtii guud ahaan ku noolaanshaha halkaan aan ku noolnahay
waxaan aad ugu faraxsannahay ka bixitaanka ummadda Soomaaliyeed ee kumeelgaadka ka baxday dadka Yurub ku nool oo dhammaan kulley magaalooyin kala duwan halkaan laftigeeda wada jooga oo Yurub qaybaheeda kala duwan ka yimiday waxay qabaan yididiilo ah goorma noqonay xamar ma tagtay goorma aduguna baxee waxaan wada leenahay yididiilo aad u weyn runtii madaxweyne xasan sheekh waxaan ka sugaynaa sidaan halkaan u soo galnay inuu ka shaqeeyo sidaan halkaan uga bixi lahayd oo aan dalka runtii in badan asagoo ka hadlaya jaaliyadaha hadday noqon lahayd Minnesota oo uu mar dhow tagay waa macnaa waxyaabihii uu ka hadlaya waxaa ka mid ahayd dal hadduu burburo ama ay dhibaato ku dhacdo waxa dhisa oo wax u qabta dadka dibadda soo aaday oo ku kordhiya dhaqaalaha oo ku kordhiya wax ay barteen runtii waxay nagu abuuraysaa annagu qofka macnaa dadka dhaqaalaha leh ama dadka ganacsatada jaaliyada ummada kala duwan ama aqoonta kala duwan leh sidii aan halkaan u joogna inaan waddankeena ku noqono oo u noqdo waddankeena sida Belgium iyo Holland oo aan ku nool kala runtii diyaargarow badan farxadda oo iga badata darteed wax badan ma dhihi karo waxaan leeyahay waxaan kaa sugaynaa wax weyn runtii insha Allah waxaan rajaynaynaa ummad Soomaaliyeed oo garbaha isqabsatay dhibaatadii hore ka baxday insha Allah waxaan ku leenahay maaragtay adigana in Ilaahay maaragtay kula qabto annagana insha Allah dadkii maaragtay muxuu ahaa inta maaragtay muxuu ahaa joogto meesha si nabadqaba ugu soo noqda ka qayb qaata dib u dhiska dalka waxaan ku leenahay hambali aad u mahadsan yahay gudoomiyaha taageerada hore sharxoon walaalayaal barnaamij dheer ayaan ugu talagalnay gabadh baa ku qorneed jadwalka inay afkaarta dhinaca quraanbarka iyo suugaanta ay halka ka soo geliso balse waxaan maqlayaa in hoos lagu celiyo in soo geli karin marka waxaan ka codsanaynaa dadka hawshan qaabilsanaa dhinaca maamulka inay gabadha ay soo daayeen markan waxaan u yeerayaa safiirka Yurub mudane نور حسن حسين تفضل كسروا حسن الشيخ محمود waxay noo tahay habeen reerbeyn ah marka anugu midkuna ay hadal badan inaan idhaahdo laakiin waxaan leeyahay mudan madaxweyne bulshada ku nool Belgium Holland Luxembourg waxa waaye bulsho runtii jecel qaranimada Soomaaliyeed Se lo fissa a camera. Lo fissa caro. Ok. Con una hatta kataba. inay yani taageeraan waxla qabtaan dadaalaan ayay diyaar u yihiin sidii aad maantaba markii aad tagtay safaaradda Soomaaliyeed ee Belgium u aragtay ama ku taabtay maalintii laga saaray dadkii sharcidarrada ku deganayay xarunta safaaradda Soomaaliyeed bulshada ku nool Belgium markaas ayaga oo aan loo yeerin oon la wacin ayay yimaadeen markaasay farxad iyo rareyn yani iyagoo muujinaya marka runtii habeenkaas shir bay meesha ku qabsadeen waxayna yidhaahdeen waa ku mahadinaynaa runtii
safaaradda iyo inta kamida jaaliyadda Soomaaliyeed oo ku dadaashay in safaaraddii xarunteedii ay ku soo noqoto gacanta Soomaaliya oo dadkii shaqada ku deganay laga bixiyo waxaan diyaar u nahay wixii dayactira oo ay u baahan tahay inaan qayb weyn ka qaadano taas runtii annagoo weydiinin markaas ayay dowlad sameeyeen weliba markii hore intay ku jiraan qaxootiga oo aan laga saarin oo aan warbixin siiyey markii aan nimid waxay yidhaahdeen guriga haddii laga saaro qaxootiga annagaas wadada dayactirayna waxaan filayaa inay ka rumaynayaan waan aaminsanahay madaxweyne kolley inaad nala socotid hadba wixii ay tallaabada ay qaadaan waa inla socodsiin doonaa laakiin waa ku kalsoonahay gurigaas iyaga isaga ah waxaa kaloo jiro guri degaankii safiirka ah oo runtii jaaliyadaha Soomaaliyeed ee reer Yurub gaar ahaan dalalkan Benelux-ka la isku yiraahdo Netherlands iyo Belgium iyo Luxembourg inta Luxembourg ma ugu badneed waxa weeye waa idin salaamayaa salaanta islaamka lagu salaamayaa assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib waxaan salaam diiran idinkaga wadaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa koobaad iyo dhammaan xubnaha baarlamaanka Soomaaliyeed oo salaam diiran idin soo salaamaya waxa weeye taageeradiina iyo ducadiina iyo garab istaaggiina ayaa lagu shaqeeyaa waad ogtihiin xaaladaha dhanka ka jira waad ogtihiin sida lagu shaqeeyo waxa weeye mar walba oo aanu isniraahno xoogaha waxyaro khariba ama xukuumadda dhulka ku yara dhaga xaggiina lasoo firiyaa waxaa la yidhaahdaa jaaliyadihii jiray dibadda iyo kuwa gudaha joogaba iyaysan nixina bal maanta sii daayeen marka ogaada dareenka aad qabtaan iyo afkaarta aad qabtaan in xildhibaanku ku shaqaynayo in wasiirku ku shaqaynayo in madaxweynaha ugu weyn uu ku shaqaynayo in askariga Soomaaliyeed uu ku shaqaynayo arrintan iyada ah ogaada way dhamaatay waqtigii la iska shaqaynayay waqtigii xoog lagu shaqaynayay way dhamaatay rabitaankiina waqtigii lagu shaqaynayay baa la gaadhay arrintaas iyada ah lagu shaqaynayo al-shabaab baa meesha joogi lahaa ogaada waxbaan dilaynaa waxbaan dhaqinaynaa intaanu qofka soo qabanaanu garaynaynaa waxaasi waa shaqayn weynay rabitaanka shacabka Soomaaliyeed wuxuu noqday dowlad